in ka badan 22 dibqalooc ayuu ku cunayaa in ka yar 20 second. Sheekadiisa ayaana noqotay mid yaab gelisa dadka ku nool wadamada Carabta ama caalamka oo dhan. بعد ما أكلتها Wariyaha ayaa wax ka weydiiyay dhadhanka dibqalooca isaga oo ku tilmaamay inuu yahay dhadhan aad u macaan isla markaasna aad la qabsanaysid marka laga reebo 3 maalin kuugu horeysa cunistiisa oo aad dareemaysid ayuu ku sheegay wax yar oo kuleyl ah. Boqorka dibqalooca Maajid ayaa yiri, haddii aad saxaraha iiga tagtaa waxaan aaminsanahay in aanan u dhiman doonin gaajo, maxaa yeelay cunadayda waxaan ka dhigtay cunista cayayaanka noocyadooda kala duwan, haba ugu badnaadaane dibqalooca oo aan aad u jeclahay cunistiisa, ayuu sii raaciyay. Haddaba daawade, ma ku dhiiran lahayd naftaada inaad dibqalooc cuntaa xitaa haddii aad gaajo awgeeda ruuxda kaaga tagayso?